بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا مولانا محمد وقورين وقالك فليتا وعلى قد شرفته إيو بهوي تلانك السنوي أيه وقالي أيه أبويا عبد الرشيد حسن مطان وحن يسنوي إلى كالفرا كالجعل يكرسوني maanta oo aan uga baxay siyaasadii weynay dhalinyarahaan waxay noo tahay farxad faan iyo foolad waxaan dareemaynaa inuu xisbigii haweenkooda ay ku soo biiray dhiig cusub iyo ruux dhalinyaro oo lagu baari dooni doono rajada mustaqbalka dhalinyarada iyo ummadda Somaliland ee nusqarniga marin haboosnay ee dayaca badan darayada diihaanka diinta ku muuqato oo ay u guuri doono dowladnimo damaanad qaata nolosha Somaliland iyo bulshada oo laga guuro qabyaaladda iyo qoloqolada haddii la helo dowladnimo damaanad qaata nolosha bulshada caafimaadkooda waxbarashadooda iyo dhammaan baahiyaadka asaasiga ah waxaa laga maarmi doonaa in lagu tiirsanaado oday iyo dhaqan iyo qabiil iyo reernimo lagu tiirsanaado inuu guuro sida dunida iyo nolosha casriga ah ee gaadhay hiraalka sare oo qof kasta damaanad qaata noloshiisa dowladnimada wanaagsan xisbiga wadaniga wuxuu fursad iyo jaanis siiyey ay facod leeyihiin dhalinyarada Somaliland oo ifaan loo tahay maanta iyo maalmo kaleba maadaama xisbiga wadaniga geliyey garab dhalinyaro heer qaran oo dimuqraadiya oo gudoomiyihii ugu horreeyey waagii dhaweytiga laga doortay magaalada saaxadheer ku-xigeenkuna waa awdal taasina ay tusayso bahweyn sar ballaaran oo Somaliland fuuladkeeda ay ka wada muuqdaan waxaanu leenahay dadka dhaxanta yidhaahdo waa xisbi qabiil quusta oo ku qarargooya maanta oo maalin weyna cabdirashiid oo dhiiggii dhalinyaradiiyo ruuxiya waxaanu leenahay annaga dugsi baad noo tahay waan kugu tiirsanaynaa waan ku dabagelaynaa waxaanu kaa kororsanaynaa waayo aragnimadiiyo ku dhaca siyaasadeed ee halkaaga adigoo 40 jir ku soo gashay siyaasiyiinta loolamaya ee 9 jirkuu yaryahay ayaanu leenahay waxaanu leenahay waxaa tahay xidhaalo cusub oo furfurmay siyaasadda Somaliland waxay u guurtay waqtigii dhalinyarada Somaliland waxay noqonaysaa madal dhalinyarada laga hagaajiyo xisbiga wadani horseedo oo hoggaankeeda iyo ilaalinteeda iyo hiraalkeeda iyo hirka sare oo ka doono xisbiga wadaniga wuxuu kaga duwan yahay asxaabta Somaliland in alla loolanaysa ummadda wuxuu kala hadlaya hir shishe anagu kala hadlayno hoos soke marka waxay noo badanaa Somaliland guriga goonigo xisbiga wadaniga alla hoggaanka dalka abu guuleeyay